sida aan ognahay caradu waa cudur dilaa ah balse ah mid tartiib tartiib u dila qofka waxaana lagu magacaabaa carada oo loo yaqaanaa almowtu albatii yacni xanaaqa faraha badan waa cudur dilaa ah balse kuu dilaya si tartiib tartiib ah waa sida sigaarka oo kale oo qofka sigaarka cabaya haddii aanu xanuuno kale oo markaas sigaarka uu dhibsanayaa aanu qabin waxa uu noqdaa mid markaasi tartiib tartiib u dila jirkiisa wadnihiisana baabi'iya haddaba caradaas ayaa waxa ay tahay shay diinta islaamku ay ka digtay ama markaasi dadka laga waaniyey in ay caroodaan ama ay xanaaqaan sababtoo ah qofku markuu caroodo ma ahan qof xasiloon jawigiisuna saxsan yahay oo waa mid qasan sidoo kalena go'aanada uu qaadanayaa ay noqdaan kuwo uu ka shallaayo ugu dambayn sidaasi daraaddeed ayay waxay dhahaan haddaad doonayso inaad shallaydo qaada go'aan adigoo xanaaqsan haddaba caradu waa wax qaab daran oo aan wanaagsanayn waa tii ninku u yimid nebiga salaallahu calayhi wasalam ee uu ku yidhi nebi allow ii dardaaran nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi laa taqdab faraddada miraaran qaala laa taqdab wuu ku celceliyey yacnii ii dardaaran nebiguna waxa uu yidhi ha caroon ha xanaaqin ninkii mar kaleu ku celiyey ii dardaaran nebiguna wuxuu yidhi ha xanaaqin sababtoo ah xanaaqu maahan wax fiican caafimaad ahaan iyo diin ahaanba noloshaadana waa uu baabi'inayaa xanaaqu isagoo kaa dhigaya qof markaasi aradan ama muuqaalkaaga ayaa isbeddelaya sababtoo ah inta xibnood iyo inta seed ee shaqaynaysa marka aad xanaaqsan tahay way ka badan yihiin inta shaqaynaysa marka aad faraxsan tahay waxaad ku jirtaa jawi deggan oo macaan haddaba sidaas iyada oo ay tahay caradu wax dhib badan ka waran qof markaasi reaction ku samaynaya ka waran qof markaa falcelinada uu ka samaynayo muuqaalada qaar ku sameeya caro yacnii waaba wax lagu bartay oo magaca uu wata ayaaba ah angry reactions falcelinadii carada lahaa ama qofkii carada badnaa ee reactionka iyo markaasi falcelinta samaynayey waa nin u dhashay waddankaasi Maraykanka oo magaciisa la yidhaahdo Oneye Johnson ninkan ayaa la buunbuuniyey mase garanayo sababta loo buunbuuninayo ayaamihii hore sida aan ogeyn qofku marka uu doonayo inuu muuqaal soo diyaariyo waxa uu u baahnaa inuu helo stuudiyo kursi fiican oo ku fariisto background dambe oo qurux leh oo soo jiidasho leh cod nadiif ah iyo wax waliba oo markaasi looga baahan yahay stuudiyoga laakiin arrinku hadda sidaa waa uu iska bedelay oo looma baahna wax stuudiyo ah asxaabta isticmaasha TikTok-ga waxay u baahan yihiin oo kaliya taleefankooda uma baahna kombiyuutar uma baahna stuudiyo weyn umana baahna qalab marka ay isku qalabeeyaan ama qarash badan oo uga baxa sidaasi daraaddeed ayay u fududaatay qof waliba inuu markaasi fursad u helo inuu muuqaal soo geliyo barta TikTok-ga iyadoona TikTok dabeecaddeedu ay tahay muuqaalka ugu horeeya ee qofku markaas soo geliyo inuu u kala kaco ama u qarxo haddaba qisadeenna maanta waxa ay ku saabsan tahay ninkan markaasi guri la'aanta ah ama derbi jiifka ah ee u dhashay waddankaasi Maraykanka ama ah Amerikaanka madow oo hal maalin oo kaliya ku helay 1 milyan oo markaasi followers waa bartiisa TikTok-ga haddaba sidee buu ku helay waa su'aasha ugu mudan ee laga yaabo daawada inaad isweydiinayso ninkan ayaa muuqaal waxa uu ka sameynaya reaction ama markaasi falcelin waa hal muuqaal oo kaliya TikTok-gana waa uu ku cusub yahay ninkan haddaba 22 jirka ah ayaa muuqaalkii ugu horeeyay ee uu bartiisa TikTok-ga soo dhigo waxa uu reaction ku sameynayay ama uu falcelin ku sameynayay muuqaal gabar ay soo dhigtay oo markaa uga hadlayso keeg ay sameynayso oo ay qurqurxinayso sidoo kalena ay ka dalbanayso asxaabta ku xiran inaanay commentiga ku fadeexaysan ama aanay ku caayin oo markaa aanay ku dhaleecayn sidaa daraaddeed ayay muuqaalkeeda soo dhigtay barteeda TikTok-ga ninkan ayaa soo qaatay isaga oo markaasi ka sameynaya reaction gaar ahaan reaction cara leh oo markaa uu aad u xanaaqsan yahay muuqaalka uu reactionka ka sameynayay ayaa waxaa daawaday in ka badan ama wax gaaraya 50 milyan oo qof waa hadda 50 milyan ogowna muuqaalkaasi ma ahan muuqaal micno u saaxiiba kaliya waa nin qaylinaya sidoo kalena isxiijinaya muuqaalkan muhiimadda aan u sameynana waxa ay tahay waxyaabaha qaar oo muhiimad aan lahayn ama micno gaara aan huwanayn marka ay warbaahintu buunbuuniso waxa ay noqdaan wax micno loo sameeyo ama bulshada la weynaada haddaba waa kan muuqaalka uu reactionka ka sameynayay gabadha keega sameynaysa ee asxaabteeda ka codsanaysay inaanay xumayn sidoo kalena kommentiyo qaab daran oo ay ka niyad jabtaanay u soo qorin wuu qaylinayaa oo wuxuu leeyahay waa kuma qofka ku xumaynaya yuu yahay qofka isku dayay inuu ku xumeeyo ii sheeg
ii tilmaam xitaa sidoo kale waxa uu leeyahay waa wax qurux badan waxa aad samaynayso markuu sidaa leeyahay ma leh weji qurxoon oo markaasi la daawan karo waa weji cara leh oo aad kaaga naxinaya codkiisa iyo weliba sida uu egyahay bal la daawo muuqaalka. Hi guys, here's another cake decorating video, and can I start off by saying, can y'all like not be mean to me? Like, who being mean to you? Or people always who? will say shit like, oh, if you're a creator, if you make content, you have to expect hate. Like, you can't get mad about it, whatever. But, like, I'm sensitive, y'all. If you tell me my cakes look like shit, yeah, it's gonna Who be said like, your cakes look like shit? That being said, all y'all Point them out. mean comments. I hope you know that cake look good. Can't tell if your comment is mean or nice. So either way, thanks. But anyways, I don't really have a story to talk about today because my life is actually pretty fucking boring. But I put gas into my car for the first time last week. Good job! And Good job! It literally happened a week ago. And that's the most exciting thing I have to talk about. But it was cool, like, it was kind of scary. I kept thinking I was gonna get blown up by the gas or something, and like, I'm so glad you did! That can, like, make it blow up, or, I don't know, it was scary, but, like, it was a fun experience, I guess, but, oh, shit, I'm out of gorgeous! ninkani haddaba horaantii ama markii hore ma aanu ahayn qof ka caan ah ama laga dhex yaqaano baraha bulshada waana nin bulshadiisa isaga dhex jiray iskana ahaa qof caadiya Oney Johnson ayaa u mahad celiyay sidoo kale dadka markaasi taageeray ee 1 milyan ee followers gaarsiiyay hal maalin oo kaliya muuqaal ayuu soo duubay oo dariiqadiisii cajiibka ahayd ee xanaaqa badnayd uu ugu mahad celinaya asxaabtiisa isagoo leh waad ku mahadsantihiin taageeradiina ma hal maalin xalay oo kaliya ayaan soo galay TikTok-ga ma hal maalin ayaad markaasi igu siiseen 1 milyan oo followers waad mahadsantihiin idinma maqlayo balse waad mahadsantihiin tani waa bilowgii oo kaliya. Huh? What? After 3 videos, bro? 3 videos? I just made this account yesterday. You guys are the most amazing people I have ever met. Thank you. Do you hear me? Thank you. I would not be here without you, and I want you to know that. Thank you so much for 1 million followers. Okay? And this is only just the beginning. Ninkani ayaa hadda waxa ku xiran wax ka badan 4 milyan oo followers oo bartiisa TikTok ku xiran. Haddaba su'aasha ugu muhiimsan ee aan isweydiinayno waxa ay tahay waa maxay sababta intaan oo dad ah ay ugu soo xirmeen ninkan waliba hal maalin oo 1 milyan oo qof ku helay ma nasiib ayaan oran karnaa sababtoo ah waxa meeshan ka dhacaya maaha wax faa'iido leh muuqaalka waa daawatay waa nin qaylinayay oo kaliya malaha waxa uu ku helay ayaan oran karnaa dariiqadiisa iyo habka markaasi uu wajahayo reaction-ka ama falcelinta xanaaqan iyo indhahan foolxumada badan ee xareerka ah iyo wejigan xanuunka badan ayaa laga yaabaa inuu dadka soo jiitay sidaas daraadeedna ay follow gareysteen balse ay ula socdaan waxyaabaha uu soo dhigi doono muuqaaladiisa oo dhan ayaa noocan ka samaysan haddaba warbaahinta ayaa waxa ay tahay mid boonboonaysa in badan dadka markaasi taafiha ah ee macnaha gaarka lahayn sababta muuqaalkan aan u diyaarinay ama aan uga hadlayno ninkan Oney Johnson ah ma ahan inaan boonboonino sidoo kale ama aan faafino fikirkiisa iyo waxa uu aaminsan yahay iyo sida uu hadlay qaabiyadiisa balse muhiimaddu waxa ay tahay inaad ogaato waxyaabo badan oo jira sida warbaahintu inay boonbooniso waxaan macna lahayn iyagoo markaasi magacyo qatar oo halis u bixinaya wixii macnaha lahaa dadkuna ay ka cararayaan wixii qiimaha lahaa iyagoo ku mashquulsan waxaan qiimo lahayn fiidiyo fara badan ayaa ninkan laga diyaariyay iyadoo ay ka hadleen website waaweyn iyo waliba sidoo kale channel in badan ay ku xiran yihiin dad fara badan oo markaasi caanka ah YouTube-ka ninkan ayaa gurigii uu degnaa laga saaray kadib markii loo adkeysan waayay qayladiisa iyo buuqiisa joogtada ah ee uu markaa taleefanka la hortaagan yahay waa marka uu muuqaal u soo diyaarinayo asxaabtu ku xiran markaasi ee ka waalay kalena socda bartiisa TikTok-ga gurigii waa laga soo saaray buuqiisa ayaa loo adkeysan waayay inta badanna muuqaalada hadda waxa uu ka soo dhaxduubaa gaarigiisa isagoo halka ka qayliya intimiraayadaha dalacdo dhab ahaantii waa qiso cajiib ah haddaba daawade hore ma u aragtay ninkan qaylada badan ee xanaaqa badan kaana nixinaya markii ugu horeysa daawataba muuqaalkiisa haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar ku soo biir kanaalka haddaad ku cusub tahay sidoo kale sii sheer garee oo la wadaag kanaalka asxaabtaada ugu yaraan 2 qof intaan ayaan ku soo koobaynaa mawduuceeni maanta waynoo mawduuc kale oo xiiso leh ilaahay idinkii waadna ku mahadsantahay daawashadaada mar kale fii amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh